safiiradda jarmalka u fadhida dalalka Soomaaliya iyo Kenya iyo waqti ay hogaaminayso ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland waxaana si diiran garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland salaan iyo soo dhaweyn kadib ayaa safiiradda iyo wafdigeedii waxa ay kormeer booqasho ah ku mareen xeryaha ay ku sugan yihiin qaxootiga dalka dib ugu soo laabtay kana soo laabtay dalka Kenya waxaana ay su'aalo ku aadan dhanka nolosha iyo amniga weydiisay qaar ka mid ah dadkii qaxootiga ahaa ee dib ugu soo laabtay dalka Soomaaliya kana soo laabtay dalka Kenya. And those who are internally displaced, do you have any jobs? Do you have anything work where you can get any income? Yeah, but how do you get money to buy food? Yes, I'm from Germany. Yes, I'm the German ambassador to Somalia. And also to Kenya because I'm based in Nairobi. But this is why I know Dadaab very well, so I know your situation. And I came here to see with my own eyes the situation of those returning from Dadaab, but also the cooperation with the internally displaced people. So I would very much like to know, you have children and probably quite a few of them. Do you get them into schools here in Kismayo? intaasi kadib ayaa safiiradda waxa ay kulan saacado soconayay kula qaadatay qasriga madaxtooyada maamul goboleedka Jubbaland madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaana ay inta badan ka wada hadlayeen amniga abaaraha ka jira dalka Soomaaliya iyo waliba maareynta noloshooda dadka qaxootiga ee dib ugu soo laabtay dalka Soomaaliya kana soo laabtay dalka Kenya. waxaan aad u faraxsanahay maanta in safiiradda dowladda jarmalka ay nagu soo booqatay halkan فعلا waxaan ka wada hadalnay arrimo badan oo horumarinta amniga iyo arrimaha qaxootiga dhaqan celinta anaasirta ka soo xarota al-shabaab guud ahaan wixii aan ka wada hadalnay aad baan isugu afgaranay shayga ugu muhiimsanna waxay ahayd inay naga caawinayaan arrimaha amniga iyo operation-ka la qaadayo waxaan u sheegnay in maanta international community waxa looga baahan yahay tahay arrimaha abaaraha oo maanta aan isleeyahay waa xilligii deyrtii roobkii ah iyo gugii labaduba ay baaqdeen abaar iyo duruuf adagna ay jirto in bal ay isku dayaan inay dadka ka caawiyaan wixii laga geysan karayo waana isla afgaranay aad baan u soo dhaweynayaa ambassador. I am very happy to be here. It's my first time in Jubaland. I have talked to the president about security situation, about the famine and drought situation, and also about the refugee situation. And I have confirmed that that Germany is ready to support not only the central government in Mogadishu, but especially the regional governments in rebuilding Somalia and also the regions, and that we think it is very important to have strong regions, to have a good base for building the federal state of Somalia. The Germans are especially concentrating on the support of women. We are building a women's center here in Kismayo, which is going to make good progress, and we want to also support returning refugees in finding a good basis here for their future life in Somalia. isku soo wada duuduuba waa markii ugu horeysay safiiradda jarmalka u fadhida dalalka Soomaaliya iyo Kenya ay soo gaarto magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland. Cabdullaahi Cabdi Cali Rubaanyere waa Bari TV magaalada Kismaayo.